madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar dhanka afka ku qaaday laanta dambi baadhista FBI-da oo sida uu sheegay ay ku guuldareysatay in ay ka hortagto toogasho Arbacadii la soo dhaafay lagu qaaday iskuul ku yaala gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in FBI-du ay waqti badan ku lumisay xaqiijinta in kooxdiisa ka shaqeynaysa ololaha doorashada ay xiriir la lahaayeen dalka Ruushka. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter ayuu Trump ku sheegay in loo baahan yahay in ay FBI-du u soo laabato shaqadii rasmiga ahayd ee loo igmaday. Waxa uu intaasi ku daray in wax aad looga xumaado ay tahay isla markaana aan la qaadan karin in waxyaabo badan oo muujinaya suurtagalnimada weerarkaasi aan waxba laga qaban. Laanta dambi baadhista ee FBI-da ayaa qirtay in ay ku guuldareysatay in ay degdeg uga jawaabto xog ku saabsanayd Nicholas uu qorsheynayay weerarkaasi. Nicholas ayaa qartay mas'uuliyadda toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Florida oo ay ku dhinteen 17 qof. Kol hore kumanaan qof ayaa Florida iskugu soo baxay waxa ayna dalbanayeen in la xakameeyo hubka gacanta ugu jira dadka rayidka. Dad badan ayaa madaxweyne Trump ku dhaliilay in uu diidan yahay in la xoojiyo sharciyada lagu xakameynayo isticmaalka hubka, balse Trump ayaa sheegay in ninka toogashadaasi ka dambeeyay uu qabay xanuunka dhimirka. Mushtaaq Xasan Maxamed, BC 24, Hargeysa.